shirkadda Meta waxay xiraysaa meelooheeda Meta. Mashruuca lacagta ka qaadista dadka doqonnimada ah wuxuu dhamaystiray muddadiisa. Sanadka diyadda Mark Zuckerberg ayaa si lama filaan ah go'aansaday in dadka ay diyaar u yihiin inay madaxooda saaraan qalab culus. Oo muddo dheer ku dagaalooda habta. U egsida dhisme jaruur oo jaban. Mark Zuckerberg wuxuu qansiyay maalgashadayaasha in dad badan ay ku noolaan doonaan oo ay ka shaqayn doonaan adduunkiisa dijitaalka ah. Hogaamiyaha shirkad weyn ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo cusub oo muhiim ah oo ku saabsan horumarinta internetka. Si loo muujiyo sida uu yahay mid dabah niyadiisa, wuxuu magacaabay Facebook oo caan ku ah adduunka inuu bedelo ereyga la isticmaalay ee Meta. Waa la yaab lahin hoggaanka shirkad weyn, halkaasu ay tahay in ay fadhiistaan dad aad u jecli badan oo khibrad leh ay ku raaceen istaraatiijiyadan. Inkasta oo dadaalada lagu caburayo meelaha dijitaalka ah la saameeyay sanado badan. oo mar walba si aan gul lahayn. Shirkadda Sony ayaa fashilantay. Shirkadda Google waxba ma aysan gaban. Dhammaan mashaariicda badan ee lagu abuurayo adduunyo 3 geesood ah ayaa ku guuldaraystay. Xitaa karantiilkii waqtiga faafitaanka ma caawin. Dadku si adag ma doonayaan in ay noloshooda iyo shaqadooda u guuraan meelaha muuqaalka ah ee kaaralka ah. Faa'iidada internetka ayaa ah in masaafooyinka ay baaba'aan. Mundooyinka 3 geesoodka ah waxay kaliya carqaladeeyaan gudbinta macluumaadka. Waana jasnimo in lagu galo muuqaal 3 geesood ah si loo helo fariin qoraal ah. Muuqaal wada hadal leh avatar 3 geesood ah waa heerka doqonnimada. Sidaas darteed, dhammaan isku dayadii lagu sameyn lahaa Meta Universe waxay noqdeen kuwa guul darro ah. In la bilaabo mashruuc noocan oo kale ah waxay ahayd mid aan micno lahayn. Waxay ku dhamaan doontaa guul darro. Maxay guddiga maamulku u oggolaadeen qorshe qaali ah oo si cad u deji doona? Sababtoo ah waxay lahaayeen hal abuur dariga madaxa. Dheriyo lagu qaado madaxa qofna ma iibin dadka waalan. Mark Zuckerberg runta ah hal abuur. Faa'iidada maaliyadeed ee shirkadaha waaweyn ma ahan mid ku xiran waxa ay dabahaan sameeyaan. Iyo inta ay soo jiidan doonaan deen cusub iyo inta ay soo saari doonaan saamiyo. Si loo soo yiito dareenka waa in la kijiyo dadweynaha iyadoo la soo bandhigayo waxyaabo xiiso leh. Sida shabakad bulsheed Facebook muddo dheer ayaa ku xayran xadka. Wax kasta oo la soo jeedin karo waa la soo jeediyey oo la hirgeliyey. Facebook ayaa noqday janjaro xanibaya oo aan la hagaajin karin. Waxaa baxay silsilad khilaafaad iyo la xiriira xunsuriyadda, xanibaadaha iyo shaacinta macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaalayaasha. Dabkan Facebook ma qusayo wuu aad u weyn yahay. laakiin maalgashadayaasha waa in lagu soo jiitaa waxyaabo cusub oo qurux badan. Ma aha wax muhiim ah, waxa dambe ka deji doona jihaada cusub. Zuckerberg wuxuu qorsheynayaa mashruuc weyn, wuxuuna sheegayaa inuu sameyn doono qajaankii dabta ah ee internetka. Waa xiiso leh waxaa jira macno in la maalgeliyo bilowga. Ma ahan oo kaliya Facebook, laakiin shirkado kale ayaa si fiican u kasbadeen iyagoo iibinaya muuqaalka. Hoos jodadka ah in dadku dhawaan u guuri doonaan adduunyooyinka muuqaalka ah waxaa lagu iibinayay madanimo qiimo sare leh dadka doqonada ah ee hami leh. Waxaan halkaas ku noolaan doonaa oo ku shacin doonaa madaxana ku qaadi doonaa baaldi culus. Suxufiyiintu waxay madadaalinayeen dadweynaha doodaha, waxayna ku dhiirigelinayeen dadka doqonnimada ah inay maalgelin sameeyaan. Ujeedada dhabta ah ee Meta Universes ee Zuckerberg waa in la soo jiito maalgashadayaasha iyo in la madadaaliyo aadanaha. Wax walba waa la sameeyay, hawshu si guul leh ayaa loo qabtay. Mashruuca waa la xiraya, shaqadiisa wuu dhammaatay. Berri waxay u fikiri doonaan hab cusub oo ay ku iibinayaan doqonnada madan. Arrintan waxay yihiin khubaro.